dowladda Kuuba ayaa sheegtay inay dadaalka ugu badan ku bixinayso si ay xorriyadooda dib ugu helaan laba dhakhtar oo dalka Kenya lagu afduubtay bishii Abriil ee sanadkan. wasiirka caafimaadka Kuuba Jose Angel Portal ayaa xaqiijiyay inay nool yihiin dhaqaatiirtu, balse ma uusan sheegin meesha ay joogaan iyo sida ay dowladdiisa ku xaqiijisay nolosha dhaqaatiirta. shir jiraa'id oo uu ku qabtay magaalada Havana ayuu ku sheegay in Kuuba ay samaysay wax kasta si ay u soo hesho dhibanayaasha afduubka. waxa uu intaas ku daray inaysan jirin dalab madax furasho oo dowladdiisa ka soo gaaray kooxihii afduubka geystay. warkan oo ay horey warbaahinta u wariyeen dowladda dadaalada lagu xaqiijinayo in la soo daayo Landi Rodriguez iyo Asel Herrera ayaa waxa ay u baahan yihiin waqti dheer iyo wada hadal, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Kuuba Jose Angel. horey madaxweynaha dalka Kuuba ayaa xiriir la soo sameeyay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya si loo kordhiyo baadigoobka dhaqaatiirta lagu afduubtay gobolka xuduudda. Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay inay dhaqaatiirta afduubteen, balse weli ma jiro wax cad oo muujinaya inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan dhaqaatiirta maqan. mana jiro war Al-Shabaab ka soo baxay oo beeninaya inay dhaqaatiirta afduubteen. goobta oo afduubku ka dhacay oo ah Mandera waxa ku badan weerarada Al-Shabaab, sidaas darteed ayaa loogu aaneeyay in rag hubaysan oo Al-Shabaab ka tirsan ay dhaqaatiirta afduubteen.